Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan bahda ku xiran janaalka Mimirqaan janaal iyo kuwan ku xirneenba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada fiisikiska ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imaanaya MK janaal. soo gudbiyuhu waa Ustaad Mimirqaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe garee adigoo gujinay gambareelka like commentiguna waa inoo muhiim. mahadsanid. waxaan ku guda jirnay cutubka afraad ee reflection of light. maantana waxaan ka qaadan doonaa qaybta ugu dambeysa ee aan kaga hadli doono uses of spherical mirrors. spherical mirrorska waxyaabaha loo isticmaalo maadaama spherical mirrorska kasoo hadalnay aynu kusoo sheegnay inay kala yihiin convex iyo weliba concave mirrors. So waxaan kaga hadli doonaa markaa videogani uses of spherical mirror iyo qayb ka mid ahi shaqooyinka oo numericalka problemska la xiriira consideration of images formed by spherical mirror. waayahay uses of spherical mirror. isticmaalida spherical mirror waxyaabaha loo adeegsado waxaan si gaar ah u beegsan doonaa ama hadda concave mirror. convexna waa inoo dambeynaysa. concave mirrorka maxaa loo adeegsadaa? marka hore concave mirrorka waxaa loo adeegsadaa for shaping mirrors, miraayadaha garka lagu xirto, timaha lagu jarto, ama yacni garka lagu xirto wixii la mid ah. So shaping mirrorska oo xirashada miraayadaha loo isticmaalo waa concave mirror. sababta maxay tahay? to see large image, maadaama concave mirrorka ay soo saarayso large image of the face ay soo saarayso. And this is because tani waxay tahay sababto when the face is held and within the focus of the concave mirror markay ay qabato then the enlarged image aad u weyn ama humaag aad u weyn oo faceska isinaya la arkayaa in the concave mirrorka laga arkayaa. This helps tani waxay markaasi ka caawinaysaa in smooth shape markaasi xiritaan markaasi smooth ah. It's the same reason concave mirrorka naftigeeda xaalad la mid ah ama reason la mid ahi ayaa haddana waxaa loo isticmaali karaa make up mirrorka ama miraayadaha make upka lagu marsado iyo shavingka ah intaba waa concave mirror weeyaan. So shaving mirrorska waxay ka samaysan yihiin concave mirror loo isticmaal iyo make up mirrorska sidoo kale concave mirror ayaa loo isticmaal. Okay, concave mirrorska waxaa kaloo loo isticmaala reflector ayaa loo isticmaala in markaasi reflector uu noqdo oo faranoqo loo yaqaano sida torchiga ilayska, yani markaasi torchiga ah nalalka iyo weliba vehicle headlightska gawaarida nalalka madaxa meesha ugu dhegan. tusaale qaybahan oo kale heat kana loo yaqaana heat vehicles ama headlight vehicles kuwaasa loo yaqaana. intaba waa concave mirrors ayaa loo isticmaalaa. under search light iyo lightskeeda oo weliba waaweynka ah search wax lagu raadiyo lagu baadigowa to get power beam of light si ay helaan marka awoodda beam of lightka falaaraha ilayska ay u helaan. intoodaba waxay loo adeegsadaa marka waa concave mirrorkaas loo isticmaalaa. shaping hadhow haddii lagu weydiiyey using of concave mirrorka waxaa loo isticmaalaa shaping mirrors, heat vehicle heat and lights iyo surge lightska intaba loo isticmaalaa. sidoo kale concave mirrorka waxaan kaloo isticmaali doonaa waxaa loo isticmaalaa doctors heat mirrors, miraayadaha dhakhtarka madaxa ku xirta. miraayadahaas maxay tahay marka? to focus light coming from, si ay markaasi focuska ay u hayso lightka ay ka imaanaysa from the lamp on the body, shayga ama body party qayb ka mid ah jirka biniaadanka khaasatan patientka oo markaasi bukaanka ah. sida horta waa qaab noocaas u yaala qalabka oo loo yaqaan heat mirrorska iyo qaybo kaloo kala duwan bo kaligii sida maahan, yani qaybo kala duwan hadba markay meeshan oo ku sameynaya yani kiis markaasi oo loogu baahan in madaxaas uu xirto ayuu ku xalinaya. So ama wuxuu ku xalinaya marka ama uu ku ogaanaya sababta uu ogaanaya marka uu isticmaalayo heat mirrorskaas muxuu yahay marka such as inuu ogaado marka xaaladaha ka jira indhaha iyo wixii la mid ah waa concave mirror. waa sababta maxay tahay marka large image ay soo saaraysa.
ayda indhaha si lamid ahi dhegaha earka dhegaha sidoo kale si lamid ahi waa nooska oo soo waado sanka iyo cunahaba oo throatka intaba waxaa loo adeegsadaa marka waa concave mirror sota to be examined marka soo u baaro marka the doctor dhakhtarka sida uu u baaro indhaha sanka dhegaha yani markaasi markii uu ku fiiriyo baalka yar wuxuu arki doonaa marka large image isagoo markaasi u suurtagalaysa marka inuu si toos u arko wax markaasi uu baadigoobayo ama uu baarayo waxaa kaloo loo isticmaalaa concave mirrorska as dishka oo tv-ga oo kale qaabka u samaysan yihiin waa concave mirror weeyaan si anteenada receive u hesho tv signals from the distance communication of satellite-ka markaasi communicationka ama isgaarsiinta satellite-ka ay zaid ugu fog si ay signalska ay ugu hesho ayay markaasi loo isticmaalaa dishiskaasa loo isticmaalaa kole inta badan in aragtina laga yaabaa oo guryihiin inta badan ay soo mareen concave mirror ayuu u samaysan yahay ama concave ahaan u samaysan yahay oo waa mid markaasi oo yacni golxe ah oo aan tuur lahayn oo convex ahayn so marka wuxuu sameynaa marka in uu anteenadaasi receive inay helaan tv signals weliba from distance communication satellites si lamid ahi waxaa loo isticmaalaa large concave mirrorska waxaaba loo isticmaalaa in loo isticmaalo qaab solar energy ah oo si falaaraha elayska ay markay ku dhacaan reflection markay sameeyaan heating solar furnaces markaasi kuleysadii markaasi wax kuleynaysa solarka in loo saaro xitaa waxaa lagu sameeyaaba qaab nooca marka loo sameeyo raashimada iyo biyaha iyo waa lagu kululeystaa ileen sababta maxay tahay markii ay falaaraha elayska ku dhacaan concave-ka noqodkeeda ayay markaasi waxay ku sameeyaan leanna falaaraha elays markay kusoo dhacaan noqodkeeda qeybaha markay kusoo dhacaan marka iyada waxay celinaysaa marka ama absorbing ay ku sameynaysaa kadibna reflection zaid u weyn soo celinaysaa maadaama ay tahay mid golxo ah kadibna waa ka qaab noocaasa markaas loo kululeysanayaa oo shaahi iyo wixii markaas lagu karsanaya so heating marka waxay karinaysaa marka ma ay kululeynaysaa solar furnace solarkii oo furnace ah ama wax loo yaqaano furnooyinkii wixii lamid ah waayahay intaa waxaan ugu gudubnay concave mirror macnaheedu ma ahan inay halkaas ay ku siman yihiin oo uses kala badanaa jira intaa hadda markaa kaga soo qaadana marka adiga baadigoob uses badanaa jirto concave mirrorska loo isticmaalo hadda waxaan soo sheegnay in loo isticmaalo for shapingka mirrorska make up mirrorska heat light of vehicleska torchga ama wax loo yaqaano surge lightka iyo tv dishiska wax badanaan kasoo sheegnay so convex mirrorka asina maxay tahay marka waxyaabaa loo adeegsado convex mirrorka waxaa loo adeegsado rare view ayaa loo adeegsadaa mirrorska waxyaabaa markaasi oo dheer oo kale oo miraayadaha wax dheerka lagu arko ayaa sida tusaale ahaan vehicles gawaarida oo kale like carska track iyo busiska tusiisa u arkaa marka traffic of the rear side ama back side sida headka oo kale ayaa laga soo qaatay baabuurada se u arkaa marka back sideka dhanka gadaal wax ka jira ama rear sideka waxa ka jira ayay markaasi ay se u arkaa marka traffic jamka ama waxyaabaha markaasi oo gadaashooda ka jira ayay loo isticmaalaa marka convex mirror taa macnaheedu tahay marka hadhow waxaa lagu weydiin karaa concave mirrorka iyo convex mirrorka keebaa dhakhtarka dentistaha isticmaala keebaa gawaarida ama driverka isticmaala waa iska caddahay driverka ama gawaaridu waxay isticmaalaan rear view mirrorska ama si kale aan u dhahno convex mirror ay isticmaalaan halka dentistahana ay isticmaalaan marka concave mirror ay isticmaalaan waayahay kaa waa mid oo hadda aan kaga soo hadalna marka oo convex mirrorka loo isticmaalo si lamid ah convex mirrorka waxaa kaloo loo adeegsadaa waxa loo yaqaano shop security mirrorska waxaan soo sheegnay in convex mirrorka loo isticmaalo rear view waxaa kaloo loo yaqaanaa back side ayaa loo yaqaanaa oo aragtida gadaalka
big convex mirrorkaasi sidoo kale waa loo isticmaalaa shopping security mirrorska kuwa amniga inta badan lagu sugo ama kaamerooyinka caadiga CCTV kaamerada loo yaqaano intaba waxay u samaysan yihiin marka qaab markaasi tuurla ah oo u dhigmad marka in convex ay yihiin si lamid ah sunglass ayaa loo isticmaalaa oo okiyaalkii wixii lamid ah okiyaalku asiga sidoo kale waa mid golxa taa macnaheedu taa markii falar ilayskaasi ay kusoo dhacdo markaasi ay noqod ay ku sameynayso aysan absorbing ama markaasi ay gudaha aysan gudfaynin oo baraanka markaasi reflection ay ugu sameynayso aysan gudaha ku sameynin taa markaasi ka ilaalinayso in qofka watay markaa iftiinkaasi ay dib uga celinayso haddii lacala absorbing ay sameyn lahayd qofka indhahay ka dili lahayd ee ka gubi lahaydba مثلا سؤال هدي اللي لا بس باس كده هدي لو بدلها كورن كم كيف مرة هدي لو بدلها وماشي إنه نقلها ميت قول حقها أي نقلها markay ku dhacdo falar ilayska waxay sameyn lahayd conversion inay sameyn lahayd meel inay aruuriso ee dhalaalin lahaydba dhalaalin ay indhaha ku sameyn lahayd so waa convex laga dhigay marka oo ah mid oo markaasi tuurla ah si ay falarta ilays markay kusoo dhacdo qofka ay ugu difaacdo marka reflectionka ay ugu difaacdo way waxaan baran doonaa markaan numerical problemska la xiriira spherical mirrors ogsoonow numerical problemska iyo waxaa isku mid ah graphical construction basically waxay kala duwan midna waa qaab xisaabeeda loo soo saari doonaa midna waa qaab sawira loo soo saari doonaa liana mid waxaa lagu sameyn doonaa lahay positiona lagu dhigi doonaa positionadaasi falaaraha soo bixinaysa oo waxaa kala sheegaysay imageka waxyaabaha ku dhaca inuu real yahay virtual yahay intuu dhacay sizekiisu waa imisa distance uu jiro had laakiin qaab number ahaan u sheegi doonaa waxaan la dhihi doonaa distancega ayuu miraayadaasi wuxuu u jiraa distance noocaas oo u jiraa okay imageka samaysmay ma yaqoon noqonaa distancega ama imageka samaysmay sizekiisu waa imisa asal intuu yaalay ahayd soan sizekiisu waa imisa hadda saasay noqonaysaa marka qaab mirrorska loo yaqaano ama qaabka problemska numericalka ahi halkan waa objectigii meesha inoo yaal objectigii waxaana falara kasoo baxday oo mirrorska ay ku dhacaysaa taa waa isla fahanay falarta soo noqonaysana waxaan kaga soo hadalnay ruleska cashiradii ka dambeeyey haata waxaa baranaynaa laakiin objectigaas halkaas taagan iyo miraayadda horta fogaana u dhexayso fogaantaas u dhexaysay ama distancesigaas u dhexeeya si hadhow markaan aan ka shaqaynayno aanan ku wareerin fogaanta u dhexaysa magacyadooda waxaan u baxsanaynaa do ayaan u baxsanaynaa do waxay ka dhigan tahay in loola jeedo distance of objective fogaanta objective u jiro miraayadda waa do ayaan dhahan kadib noqod kadib ee miraayadda ay ku dhacdo falar ilayskii markaa kasoo baxdo objectigii focus kasoo martay ad meel ay ku kulmeen kadibna ay sameeyeen imagekana sidoo kale wuxuu fogaan u jiraa miraayadda ayuu fogaan u jiraa asina fogaantaas u jiro waxaan leenahay waxaa u bixinaynaa di laba qodob hadda baranay qodob loo yaqaan do goormay waayo do waa objectigii iyo miraayadii fogaanta ay isku jiraan qodobka labaad waa di waa imageka samaysmay iyo miraayadda fogaanta ay isku jiraan qodobka aan rabnay inaa ogaana marka waxay tahay focuska iyo boolka fogaanta isku jiraan oo horeyna aan ugu soo sharaxnay in loo yaqaano focal lens liriculmiska okay waxaan rabnaa marka formulihii mirrorska aan u isticmaali lahayn formulaha mirrorska aan u isticmaali lahayn waa formulahan 1/f oo focal lensiga ah waxay la mid tahay 1/di oo distance of image ah oo lagu daray 1/do magnification formulaha markii aan kaga hadlayno weynaysada magnificationka minta weynaaday am qaacidana u qaadan doonaa magnification waxay la mid tahay hi oo loo qeybiyay ho ama inaan qaacidadan qaadano oo ah minus waa di oo loo qeybiyey do okay markaa fiiris markaa ereyadii hadda aan soo baranay do waxay u taagan tahay distance of object ama object distance ayay u taagan tahay di waxay u taagan tahay image distance focal lensigii iyo h of object ama size of objectiga ama in la dhaho height of image ama size of image ama magnification okay hadda ereyadii waa haynaa hadhow su-aalana la qori doonaa su-aalihii waxaa rabnaa marka inaan ka faadno
do inaan ka dhex fahnaa rabnaa, di inaan ka fahnaa rabnaa, focal lengthigii, high of objectiga, high of imagekii iyo magnificationka inaan ka fahnaa rabnaa. sidee aan u rabnaa marka inaan u fahno? tusaale ahaan adiga imtixaana fadhisaa, mar su-aale markaas lagu weydiiyey ama meelaa lagu qoray, durba waxaa lagaa rabaa adigoo fikradii waxaas galin, waxyaabana waa inay xasuusnaataa, kuwana waa inay target ku yihiin. okay, masalan waxaa rabaa tiraa meesha qoran oo number ah, hal beeg leh, in laga hadlay distance of object ama object of distance, si ku kala garan karaa. waxaa nalaku weydiin karaa su-aalaha meesha yaala. horta marka hore distance of objectiga laguma dhahay distance of object, mar badanaa basas haddii rabo laguma dhahay distance of object intaasuu la mid yahay lagu dhahay. laakiin waa inay fahantaa shay ama hebel ama waxyaabo ama thing ee wuxuu kaamirada u jiraa, yani kaamirada u jiraa haddii lagu dhaho fogaana u jiraa waay, fogaantaas u jiro yaa laga hadlay kaamiradii. ama si kale aan dhahno hadda anaga wax ka hadlayno waa mirrorska weeyaan somaan. waxaa lagu dhahay hebel ama shay wuxuu u jiraa wax loo yaqaano mirrorka ama miraayada u jiraa intaas. okay, midka aan ka hadlayno waa shay iyo miraayada fogaanta u jiraan, warka waa inaa fahantaa inay tahay distance of object. qaabkaas oo lagu weydiin karaa. ama in lagu dhaho distance of object intaas la mid ah, waa mid la garan karaba. laakiin shaygaay meel la dhigay wuxuuna miraayada u jiraa, waa fahmi kartaa marka shayga ilaa hadda weli humaag ma sameynin, yani image ma uusan sameyn, marka shaygaa weli laga hadlaa. okay, isla shayga waxaa rabnaa ho haddana isla shayga inaan ka ogaano. ho se ka ogaana weliba objectile weli maraynaa. okay, ho waxaa ka ogaanaysa horta erayadan horta waa laga yaabaa inay soo galaan oo ah height of object intaasuu la mid yahay, ama size of object intaasuu la mid yahay, waa ho waay. si kale haddii aan dhahan ama high of object 2 meter high of image ama of object markii lagu dhaho, waa sumado aad uu markaas loo fahmi karo ayay ka muuqanaysaa marka. okay, focal length waa iska cadyahay kumiska. di daasin sidoo kale waa sida hadda oo kale, haddana waxaa lagu dhahay objectiga shayga meel la dhigay, miraayada waxay u jirtaa. hadda waxaa lalahay imageka sameysmay, miraayada wuxuu u jiraa, intaas waa fahmi kartaa marka. waya intaan marka shaqada gudagalin, waxaa rabnaa marka hore calaamado inaan sameyso oo hadhow aan ku kala garan karno concave miya, convex miya, real miya, mis virtual waa, upright miya, mis inverted waa, inaan ku kala garan karnaa rabnaa. okay, concaveka sign conventionka rabnaa marka intaan markaan shaqeynayno, focal lengthigeen waa positive markay miraayada ay concave tahay. gobolka qaar waxaa arkaysaa waxay u fiirinayaan qaab ah maadaama x-ka uu leeyahay laba qaab, laba meel uu leeyahay, soo dhidi meelna oo ay ku doodgareysan tahay dhanka menis, meelna ay ku doodgareysan tahay marka tirooyin balaas ah. waxay leeyihiin marka qaar gobolka qaar waxay leeyihiin objectiga horta muxuu yaalaa, objectiga wuxuu yaalaa dhanka meniska, sidaa aweed do simber menis waayo leeyihiin. marka uu imageka inta ka samaysmana ama inta uu ka samaysman dhinaca meniska uu ka samaysan menis ay leeyihiin, marka di-na waa menis ay leeyihiin marka, oo marka ay real uu yahay ama real uu yahay. so anaga marka waxaan ku dabaqaynaa oo reference noo ah buugeena, lianna qaybta kale waa qaadan karnaa. laakiin waxaa mararka qaar oo isweydiin mudan, haddii iyagoo saan u maleeya inay concaveka ilan qaabkan leh loo dhiga mal dhihin soan, haddii qaabkaas aa u dhiga anoo concaveka dhiganayo, haddii qaabkaas aa u dhigano, qaabkaas haddii aan u dhigano, hadda objectiga intuu yaalaa marka, intuu yaalaa dhanka balaasku yaalaa, qaabkaas haddii rabna waa dhigi karnaa concaveka mirrorka, haddii aan rabno qaabkaasna waa u samaysan karnaa, lianna qaabkan len loo dhiga qasab maahayn. okay, markii sidaas laga hadlaayo, waxaan kaloo fiirin doonaa anaga referencega buuggeena noo noqonayo oo qaybo ka mid ahna oo sidaas noocan hadda aan ku qornay ama saana ay tahayna oo raacsanna waa ay jiraan oo badanaaba. okay, focal lengthga waa positive. almuhim in sign conventionka marka hore waa inaa ogaataa adiga mirror marka hore waa positive, waa concave mirror markay tahay, negativena waxay tahay waa convex mirror. okay, do mar walba positive waay,
kan waa di waaye. do mar walba waa positive, do-ga always positive waaye, marka do mar walba waa positive. Okay, di is positive, di waa positive goorme haddii imageka uu yahay real image, ama si kale aan u dhahno inuu imagekaasi dhaco same side, ama objectigii same side uu la dhaco oo kale, waa real waan leenahay, waa di markay tahay. di waa negative, waa marka imageka uu virtual yahay ama uu dhaco miraayada gadaasheeda ee uu ka samaysmo. high of positive, high imageka heightkiis waa positive markay upright tahay. upright macnaheeda yani virtual markuu yahay waay, virtual markuu yahay waa positive waay. waana negative marka uu inverted yahay, therefore waa real waay, marba hadduu inverted yahay waa real waay. Okay, sign conventionkan mar walba inaa xifdiso waa muhiim, oo waxay kaa saacidaysaa markaa wax ka shaqeynaysa oo kale inaa calaamadihiina aad u kuur gasho. su-aashan balan ku dabaqno anagoo sign conventionkana aynu ka tegayno aan ku dabaqeen. su-aasha ugu horeysa waxaan la weydiiyey horta position of image. positionka imageka waati aan kaga soo hadlnay, mar hadduu positionkiisa aan helno yacni waa imageka iyo miraayada inta isku jiraana waaye, saasaa ku sheegna waaye. di da nalka raba najerka uu lahaan karo ma reala, virtual miya, upright miya, inverted miya. sizeka uu imagekaas lahaan karo, sizeka waa la fahmi karaa. sizeka yani heightka uu imageka lahaanaya haddii objectiga sizekiisu yahay 1 centimeter lana dhigo fogaan u jirta 15 dhanka concave mirror, miraayad laga hadlayo waa concave mirror, iyadoo dhirkulmiskeedu yahay 10 centimeter. ugu horeyn waxaan raadinaynaa horta di calaamsaal noo saaran, najerkii yaan raadin doonaa, iyo hi oo calaamsaal noo saaran. waxaan kaloo haysanaa ho, liana size of object ho waay 1 centimeter. waxaa la dhihi distance u jira concave mirror ayuu jiraa, do waa 15 centimeter. focal lengthiguna waa iska cadiya. ogsano dhammaan centimeter ku cabiran yihiin, marka si toos centimeter bas keliya aan isticmaali doonaa. haddii lacala oo halbeeka kala duwan ay noqon doonaan, hal dhinac ayaan raaci doonaa. Okay, waxaan soo qaadan doonaa marka formulaha uu leeyahay mirrorska. concave mirrorka iyo convex mirrorka hal formula ay wadaagaan oo formulahaan ah, bas keliya haddii maxay ku kala duwan yihiin, sign conventionka ayay ku kala duwan yihiin. Okay, waxaan ku bedelan doonaa waxaan haysano intaan ku bedelinayaa kan haddii rabta waa kasoo dhex saaran kartaa, oo di raadinaysa somaan, di da waa soo dhex saaran kartaa marka, oo waxaa samaynaysaaba qaybtana iska wareejinaysaa iyadoo maynaysa ku wareegaysaa. di waxay la mid tahay 1/f oo laga jaray 1/do. mar walba marka ku bedela marka tirooyinkeeda. focal lengthsiga tirada aan qaadanayno ma positive mise waa negative, marba haddii concave ay tahay waa positive, focal lengthsigu waa positive. Okay, 10 centimeter oo laga jaray ilan do waa wareejisamaan 1/do waxaan haysanaa waa 15 oo centimeter ah. haddii gacanaa ku shaqeynaysa ama centimeter si toos u gelinaysa labadaani, tusaalahan waxay wadaagaan 30 ay wadaagaan oo common factor ama wax loo yaqaano LCM markii loo raadiyo 10 markii 10 30 markii 10 loo qeyno waa 3, sariis markii lagu dhuftana waa 3 laga jaray markii 30 markii laga jaro ama loo qeybiyey 15 waa 2 hal ku dhufan waa 2. labadooda markii la kala jaro waxaa soo baxaysa marka hal holos dhigay 30. soo kala rog marka di korgee 30 centimeter korgee hal hoos soo dhig kala rog, yani waxaa soo baxa marka 30 centimeter oo weliba balaas ah. mar haddee balaas tahay najerka fiiri, di da mar haddee balaas ay noqoto maxay ahaa, mar haddee balaas noqoto waa real waaye, waana inverted weeyaan. wuxuun ka samaysmay marka in front of concave mirror ayuu ka samaysmay, waana real waana inverted. hadduu di da ee balaas tahay waaye, di da haddee balaas tahay, marba najerka magaa qoraysa di da ka fiirso, di da haddee balaas tahay waa real inverted ah, haddee minus tahayna waa virtual oo erect ah. Okay, waxaa noo dhiman waa hi. qaacida kale waxaa jirtay oo magnificationka mideynaysa, oo hi iyo di mideynaysa. waxaan samayn karnaa inaan magnification soo helno oo anagoo qaabkan qaadanayna, markaan soo helnana haddana anagoo magnificationkaas haysanana haddana qaybtan aan ku dabaqno. wadada dheerna waxaa noogu fudud
inaan qaybtan maadaama intaan navigation intaan la eg tahay intaan la eg tahay labadan waa isla egyihiin waxaan qaadan doonaa hi oo loo qeybiyo marka ho inay la mid tahay negative di oo loo qeybiyo marka do okay mid una idin sameyno oo yani tusaale ahaan maraa waxaa raadinaysaa hi maraa waxaa raadinaysaa di maraa waxaa raadinaysaa do maraa waxaa raadinaysaa ho see markaas aan ku sameyn karnaa marka qaacidadiisi guud qaacidada guud waxaa ku sameyn kartaa masalan tusaale ahaan hi aan rabaa aniga hi inaan qaacidadaas kasoo dhex saaro waxay la mid tahan leh okay horta qeyb waa inaad sameysaa okay waxaan sameynaynaa horta kan waa xaraf I kanna waa xaraf h saddexdana soo harta soomaan saddexdana waa marna d kuwana d ay wataan kuwana o aa la socda kuwana I la socda kuwana h aa la socda soomaan horta waxaa hooseeyaha ka ilaalinaysaa wax I wata ama h ku jira sharcigaas noo sii hay maxaan dhahnay wax I wata wax h ku jira labadaas horta iska ilaali mar walba waa yani oo haddii meeshan do noqoto wax o wata d wata aa ilaalinaysaa meeshan hooseeyaha ka ilaalinaysaa okay wax I wata tusaalahaan di waay hooseeya ma noqonayo wax h wata ho waa hooseeya ma noqonayo yaa hooseeya ahay do waa hooseeya ah do ah hooseeya ah hay labada kala soo hartay iyagoo isku dhufsan sareeyaha ka dhig marka iyagoo isku dhufsan waxaa ka dhigaysaa marka sareeyaha ka dhigaysaa oo lagu dhuftay ho qaacidada saasaa ku samaysanaysaa haddii ho aa rabtid ama ho haddaa rabtid waxaa ilaalinaysaan dhahay labada xaraf oo ah o wax wata hooseeya ma noqonayo h wax watana hooseeya ma noqonayo okay yaa hooseeya noqonaya marka minus di ayaa hooseeya noqonaysa lianna o na ma wadato h na ma wadato laba kala soo harna sareeyaha ka dhigaysaa labada kala soo harana sareeyaha aa ka dhigaysaa marka oo iyagoo isku dhufsan ah qaabkaasaa u samaynaysaa markii qaacidooyinkaa samaysanaysa okay hadda waxaan sameynaa marka di oo lagu dhuftay ho oo loo qeybiyay do ayaan sameynaynaa maadaama ida iyo hka aan ka dhowrnay hooseeyaha okay durba markaan ku bedelna qaacidada tirooyinkooda sidoo markii lagu dhufta hal waa 30 oo minus wadata 30 markii 15 loo qeybiyana waa negative 3 ama negative 2 centimeter ay la mid tahay haddii h ida ee negative ahayd oo mar hore aan soo sheegnayba waa inverted weeyaan waaba inverted weeyaan di ida aba markaas najerka ka dhex heli karnaaba di ida haddaa helno najerka sidaasaa ku haysanaaba waayahay an objective 5 centimeter high objecti joogiisu yahay 5 centimeter ayaa waxaa la dhigay 10 centimeter u jirta convex mirror miraayadaasi convex mirrorka ah kaasoo radius of curvature-kiisu yahay 30 centimeter radius positionka imageka iyo najerka imageka iyo size of imageka objectiga heightkiisu waxaan lahay waa 5 centimeter fogaanta u jirana sidoo kale waxaa lahay 10 centimeter waay 10 centimeter 10 centimeter weeyaan okay waxaa kaloo rabnaa marka radiuskii of curvature-kan asi sidoo kale waa 30 centimeter waxaan raadinaynaa di iyo najerka iyo hi ayaan raadin doonaa okay qaacidada formulihii oo ay wadaagaan dhahnay convex ama concave-ku waaqa yaa ka raadinaynaa marka anaga di ayaan raadinaynaa di na qaacidadaas ayaa inoogu soo baxday oo 1 over di waxay la mid tahay 1 over f oo laga jaray 1 over do okay markaa fiiriso qaacidadayna iyo gifinka aan haysano waxaa halkaa ka maqan focal lensiga ayaa ka maqan markaan kasoo hadlaynay gravity-ga ama concave ama convex aan noqoto qaybtan waxaan focuska waaye qaybtan waxaan center of curvature waaye labadan fogaan isku jiraan waa focal lens aan dhahnay labadana fogaan isku jiraan oo center of curvature iyo polka waxay fogaan isku jiraan waxaa dhahnay waa radiuskii ama radius of curvature aan dhahnay waxaan ahaan usoo sheegnay in focal lensigii ama radiuska uu ahaa focal lensiga radiuska inuu ahaa labalaabkii focal lensigii halka focal lensiga uu noqonaa marka halfka radiuskii halfka radius focal lensiga wuxuu noqonaa marka radiuska halfkiisa ayuu noqonayaa si aan focal lens u helno marka radius ayaan half kaga dhigi doonaa waxayna soo baxaysaa 15 centimeter ogsoonow 15 centimeter focal lensiga
maanta miraayadaan ka hadlayno waa convex mirror. Mar haddii convex mirror ay tahay negative ayaan siin doonaa focal lensiga. waa sign conventionkii aan soo baranay. Okay, aan ku bedelina durbadiiba. Markaan ku bedelinama oo aad geliso marka TV-ga oo labadaani waxa u dhaxaysa 30 sila midahay 30 markii loo qaybiyo 15 waa laba weeyaan oo minus wata minus 2 sareeyo ku noqonaya. qaybtaana markii aad isku dhufato ama u qaybiso waa 3 iyo minus 3 oo noqonaya laba isku darkooda waa minus 5 kaloritaankooda oo minus 5 marka loo qaybiyo 30 waxay noqonaysaa kaloritaankooda waxay noqonaysaa marka waa kuwa isku burburina oo korna 5 loo qaybina oo waa 1 oo hoosna markii 5 loo qaybina waa 6 1/6 sidaas ay ku soo baxday marka kalori kadib minus 6 cm. waxaan dhahnay marba haddii di-da aan helno najerkana waa hayna. marba haddii size-ka ama height-ka yani tirada ahaana usoo saaranayna laakiin najerkii di-daba si toosa noogu filanba. Okay, mar haddii minus tahay hadaba waa virtual waaye oo convex mirror ayuu sameynaya oo behind convex mirror ayuu ka samaysmayaa. najerkiisana wuxuu noqonayaa virtual. mar hadduu virtual yahayna waa erecto mid markaasi taagan waaye. height-ki fiiri hi-da qaacidadii hore usoo qaadanay oo minus di oo lagu dhuftay ho loo qaybay do ama programkii aan ku sheegay programkaas qaado si aad u fahanto. marka durba waxaan ku bedelinay marka natiijadii oo minuskii asalka ahaa iyo minus 6 cm di-da wadata lagu dhuftay 5 cm. labada marka lasku dhufto waa minus 30 waaye oo minuskaas marka ku dhacdana waa plus 30 waaye. plus 30 markii 10 loo qaybina durba waxaa soo baxaysa marka oo 3 cm oo positive mar haddii hi positive ay tahayna waa upright weeyaan. waayahay aad waa mahadsantihiin dhegeysigiina wacan iyo daawashadiina qaaliga fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka inoo subscribe geliya ariga ugu janaya gambaleelka like commentigana waa inoo muhiim. mahadsanid la soco jabtarka xiga.